boqolaal muslimiin oo ku dhaqan degmada Caawudaaq ayaa maanta salaadii duhur ku tukatay bannaanka hore mid kamid ah masaajidada waaweyn ee ku yaala degmada Caawudaaq kadib markii roobkii hore uga da'ay degmada Caawudaaq ay dumiyeen masjidkani kaas oo ku socday dhisme laga waday masjidka oo iminka lagu guda jiray dayactirkiisa masjidkan oo dhismihiisu uu qaatay muddo aad u fara badan ayaa waxa ku baxay sida la sheegay qarash aad u fara badan oo ay ku sadaqaysteen dadka ku dhaqan degmada Caawudaaq inkastoo uusan ka yeelaba joogin hase ahaatee haddana ay waxyeeleeyeen roobkii deyrta ee iminka si isdaba joog uga da'ay degmada Caawudaaq iyo waliba nawaaxigeeda oo qoyay shubkii iyo sibirkii lagu dhisay masjidkan oo ku fadhiyay qarash badan iyadoo biyihiina ay u soo galeen gudaha masjidka tiro laba jeer hore oo aysan ku jirin hadda ayaa masjidkani waxa hore u dumiyay roobkii hore uga da'ay degmada Caawudaaq marna waxa loo dumiyay farsamo xumo iyo injineerkii oo si qaldan u dhisay sida ay sheegeen mashaayikhda iyo mas'uuliyiinta gacanta ku haya masjidkani waxaana arrintan sharaxaya Sheekh Liibaan Xaaji Maxamuud oo kamid ah culimada markaas gacanta ku haysa mas'uuliyadda masjidkan oo ka hadlay waxa uu baahan yahay sida uu yahay qarash fara badan baa galay in la dhiso hadda diyaar u yahay chaygi iyo ciidii iyo waa kuwan yaala oo wixii la heli karo chay ah waa la soo dhigay ciidii sidoo kale waxba laga soo dhigay biri waxba ka yaala laakiin hadda wuxuu u taagan yahay wax yar oo dhamaystir oo lacagta shaqaalu qaadan lahaa iyo lacagta sibirka lagu gadi lahaa iyo lacagta albaabada iyo daaqadaha lagu gelin lahaa iyo lacagtii waxa la yiraahdo mutulaalka lagu dhigi lahaa iyo lacagaha noocaas u taagan yahay waxaan rabnaa marka dadka muslimiinta ah ee muxsiniinta ah ee ka qayb gala inay masaajida dhisaan iyagoo waxa fadli diinta ku soo arooray aaminsan inay nagala qayb galaan cid kastoo codkaya u gaaro oo dhawaaqaya u gaaro haddaanay guddiga masaajidka dhisaya waxaan rabnaa inay nagu tadawucaan oo samafal iyo xoolo la soo baxaan baan rabnaa sidoo kale macallin Nuur Xirsi Siyaado asna kamid ah mashaayikhda gacanta ku haysta mas'uuliyadda masjidkani ayaa ugu baaqay guud ahaan qurba joogta ku nool wadanka dibadiisa gaar ahaan muslimiinta oo idil inay ka qayb qaataan markaana si ay ajar uga helaan wax ka dhisan masjidkani ayuu sidoo kale uu sheegay cid ka qayb qaata in aakhiriya adduun ay liibaani doonaan masaajidku waxyaalo badan buu rabaa oo kharash aad u badan baa ku baxaya haddana waad aragtaan calaamadiisii meeshay marayso dayn badanna waa qabaa hadda inta idiin muuqata xoolo fara badan oo dayn ah lagu leeyahay musqulihii iyo biyihii meeshii lagu weysaysan lahaa haddii ilaahay ku ilaa waad aragteen qaybta dambe oo markii hore la dhisay waa dabaq wixii oo dhan buu rabaa 200,000 weeye marka masaajidka inaad ka soo qaybsataan dadka ka soo qayb gashaan wixii adillaa awalna waa haysteen dad islaam ah tihiin wixii adillaa oo masaajidka iyo khayriyadiisa ku saabsan waa la idin sheego sheekha idin sheego hadda meesha idin ku jirtaa waana idin soo gudbinaynaa masaajidka guddigiisa inta maaragta la rabo in lala soo xiriiro iyo meelaha lacagta soo qaadi kara iyo akoonkiiba waxaanu codsanaynaa masaajidkaas intiina maqlaysa oo islaam ah oo jaaliyada ma ahaadeen ama dad kale oo islaam ah oo ehel ha ahaadeen inay ku soo darsadaan masjidada ku yaala degmada Caawudaaq oo aad u fara badan ayaa waxay u badan yihiin kuwa yar oo aan qaadin dadka marka laga rabo masjidkan oo ah kan ugu weyn oo ku yaala gudaha magaalada Caawudaaq oo aadna ugu dhow dadka xilliga salaada marka la gaaro maadaama masaajidada badankooda ay ku yaalaan xaafadaha iyo duleedka degmada Caawudaaq oo aysan dadku ka gaarin salaadaha jamaacadaha inkastoo in badan loo dhabar adeegay in mar uu hirgalo masjidkani lagana soo jeedo dhismihiisa ayaa waxa ay noqotay mid suurtagal weeday